مات فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta insha Allah halkan waxaan kusoo bandhigaynaa barnaamijkeeni aan horey u wadnay. waxaana la hadlaynaa hablaha dumarkeena Soomaaliyeed ninkaad rabtid inaad nolosha la wadaagtid maxaad ku dooranaysaa. anigu ahantayda waxaan kugu talinayaa inaad ku dooratid tilmaamaha aan kuu sheegay waxaa ka mid ah arrinka koowaad inaad ku dooratid ninkaad nolosha la wadaagaysid inuu yahay qof ahlu diin ah. ahlu diin markaan leeyahayna ma ahan inuu xifdisan yahay Bukhari iyo Muslimka. ahlu diin waxaa la yiraahdaa qof intuu yaqaano ku dhaqmaya ahlu salaadna ah masaajida aan laga weynayn. arrinka kale aan kugu labaynayo waxay tahay inuu yahay qof aanan lahayn balwada way fara badan tahay. maandooriyaha ayaa ka mid ah, fanka heesaha ayaa ka mid ah, aflaanta ayaa ka mid ah. arrinkaas ayaan kugu labaynaya. arrinkan kugu saddexaynaya waxay tahay qofka aad nolosha la wadaagaysid intaad la sheekaysanaysid inuu yahay qof aanan lagu arag meelaha fadhi ku tirada, waqtigiisa aanan dayicin, meelaha fadhi ku tirada aan lagu arag, inuu yahay qofka aad nolosha la wadaagaysid. arrinkan kugu afaraynaya waxay tahay inuu yahay qof dabeecad wanaagsan oo aad u ixtiraam badan. ixtiraamka iyo dabeecad wanaagga waa laga maarmaan. qoyska wuxuu ku dhisan yahay waa dabeecad wanaag iyo ixtiraam. arrinkan kugu shanaynaya wuxuu yahay inuu yahay qofkaad nolosha la qaybsanaysid qof jecel horumar oo shaqaysta haba yaraata shaqada. inuu horumar ayuu jecel yahay, waqti walbana dadaal ayuu bixinayaa wana shaqaystaa shaqadiisa haba yaraatee. shaqada inay yartahay inay weyn tahay muhiim ma ahan. qofka irsaaqada ilaah u qor ayuu cunayaa, laakiinse inuu qofka meel fadhino qof shaqaysanay uu yahay. arrinkan kugu lixaynaya waxay tahay aan kugula dardaarmay inaad ka fiirisid ninkaad nolosha la qaybsanaysid ama aad rabtid inaad la qaybsatid inuu yahay qof deeqsi, uusan ahayn baqiil. baqiilka hadduu yahay qofka waxna ma dhaqi karo waxna lama dhaqmi karayo. saa la adligeed arrinkan kugu tadabaynaya wuxuu yahay inuu yahay qof qaraabadiisa xiriiriya. qofkaas ayaa qaraabadaada xiriirinaya. qofka hadduu qaraabo goys yahay qaraabadaadana ma xiriirin doona mustaqbalka. waxaan barnaamijyadan usoo duubay walaalayaal waxay tahay in gabdhaheena Soomaaliyeed ay fiirsadaan ragga waxa ay ku dooran lahaayeen. qofka haddii aad hadaf aad ku dooratay ay leedahay mustaqbalka haddii aad isguursataan waxaa kuu cadaanaya xilli weliba hadafkii aad ku dooratay iyo maqsadkii ujeedada aad ka lahayd. waxaan kuu dardaarmayaa qofka aad nolosha la wadaagaysid inaad hadafka leedahay, hadaf aadna ku dooranaysid. hada aakhiruhu sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed. waxaan qalday waxay ka ahaatay naftaydii shaytaan, waxaan nasiibeyna ilaahi subxaanahu watacaala.